meel iskugu yimid oo nin daanisha oo ay qaatay dhalashada waddankan Sweden ayaa ninkaas waddankan qas badan ka wada wuxuu samaynayaa kitaabkii quraanku gubaya kulma magaalo tagaya dadkii muslimiintana aad bay arrinkaas uga caroodeen magaalooyin badan baa hadda laga soo rabshado ka dhaceen sida Linköping sida Stockholm oo kale maantana wuxuu joogaa galabta magaalada Örebro halkan dad badan baa isku soo baxay magaalooyinka marka uu dooranayo wuxuu dooranayaa masaajid hortiisa maalin jumcaha xilliga salaada laga soo baxay ayay doortaan waxaasna waa bahdilaad lagu sameeyay dadkii muslimiinta oo leeyahay maxaa tari kartaan oo kale إسلايته قفل الدلي هلو إسلايته والسدلاية بوليس كده على الدالي بوليس الله أكبر بوليس كده على الدالي الله وبركاته وعن جوجنا مانتا ميل iskugu yimid oo nin daanisha oo ay qaatay dhalashada waddankan Sweden ayaa ninkaas waddankan qas badan ka wada wuxuu samaynayaa kitaabkii quraanku gubaya kulma magaalo tagaya dadkii muslimiintana aad bay arrinkaas uga caroodeen nin cunsuri ah ayaa waxa uu bilaabay in uu goobo fagaara ah oo maalin ka dambeeyo intuu uu tago inuu kitaabka quraanka kariimka inuu ku gubo kaasi oo inta badan ay dadka muslimiinta ee daafaha caalamka ku nool ay aad ay uga xanaaqeen arrinta iyada hadda meesha uu dhibaatada xooggan uu ka wado waa dalka Sweden oo isku soo baxayaan dadka muslimiinta ee daafaha caalamka ku nool marka ay ku sugan dalka Sweden ninkan ayaan u dhalan dalka Sweden balse waxa uu qaatay dhawaan dhalashada dalka Sweden Danish way isaga si la sheegay marka ninkan waxa la sheegay in marka uu dhibaatadan uu sameeyo ama uu kitaabka quraanka uu gubayo waa cunsuri isla markaasina aad u nacab islaamka waxa uu dooranayaa goobaha ay ku sugan yihiin muslimiinta waayo hadii uu goob ay joogan kristiyaanka kaliya hadii uu ku gubo wax saameyn ah xaqiisa kuma yeelanayso waayo wuxuu doonayaa in dadka inta ay kacaan dhibaato inay sameeyaan inta kaliya ay danta u kaleeyahay ayay tahay waxyaabaha uu ku doorto marka waxa weeye inuu tago goobaha muslimiinta ay ku sugan yihiin sida masaajida waliba maalmaha jamcaha oo dadka ay fasax ay yihiin ama markaan isku imaadaan masaajidka ee khudbada u imaadaan markii khudbada laga soo dareero inuu la hor istaago oo ku gubo isagoo oo dhahayo waa gubay kitaabkiina quraanka ee maxad iga qaadi kartaan iyo wax la mid isagoo ka faa'iideysanayo xuriyatul qowlka beenta ah ee dadka loo sheegay uu doonayo inuu ku ihaaniyo dadka muslimiinta balse dadka muslimiinta ayaa arrintaasi ka mudaharaaday qayb badan oo kamid ah dalka Sweden mudaharaadii ay ka dhigeen askartay la dagaaleen iyagoo aad uga cabanayo dhibaatadaas xooggan ee ninkaas cunsuriga ah uu ku hayo mana ahana markii u horeysay oo qof Christian ah oo kitaabka quraanka meel dadka isku imaanayaan uu ku gubo ninkan hadda dowladda Sweden ayaa booliska isku tagay doonayaan inay qabtaan isla markaasina cadaaladda ay mariyaan waxaan la soconaa dad badan oo sidan oo kala sameeyay kuwa nabiga caayay in ay musiibo kala duwan in ay kulmeen qaarkood gaari ay ku jireen inuu ku gubtay si ninka nabiga caayay oo kale isla markaasina wax ka bixintii la waay uu ku baabay nin kale oo isagana baarlamaanka dalka Ingiriiska ku jiray maalin dhaweyd waxa tuuriyay wiil yar oo Soomaaliyeed isagoo waliba ku eersanayay oo uu yiri wuxuu kamid ahaa xildhibaanadii uu codeeyay in la weeraro dalka Suuriya marka si uusan mar dambe codkiisan uusan islaamka ugu dhibin baan ku dilayaa iyo wax la mid marka islaamka laftiisa dadaalkooda ma taqaanay mayo gaalada kuwa cunsuriyiinta ahna waxay doonayaan inay islaamka kula nool goobahaasi inay dhibaateyn u geystaan inta badan wadamada reer galbeedka dastuurkooda waxa kamid ah in qofka diintiisa inaan lagu xadgudbi karin laakiin waxa la yaab leh inta badan caalamka ku arkimaysid diimaha kale ee Hinduusa noqdaan ama ha noqdaan Yuhuud ama baa noqdaan oo kitaabkoodii wixii la mid ah dhibaato loo geysanayo laakiin inta badan waxa ku aragtaa in midka islaamka in dhibaato loo geysto mar walba kitaabkeena quraanka ee xaq ah in gaaladu cunsuriyiinta ah inay markasta ay usoo fakfakadaan ayna dhibaateeyaan marka ninkaasi waxa weeye waa nacayb uu qaba islaamka iyo diinta islaamka uu arkay in sara u kacday
markaasina inta badan qaaradda Yurub inay la wareegtay markii ay arkeen ay waxa ay sameynayaan inay islaamka ay islaam naceeb inay abuuraan laakiin mar walba oo isku dayaan inay waxyaabahaas oo kale ay sameeyaan waa mar walba oo diinta islaamka idan ay kor ay sii noqoto isla markaasina ay sii cizowdo waayo waxaad ka dareemi kartaa falcelinta islaamka iyo weli dad badan oo islaamka aan garanaynin aan maqal inay raadiyaan ay dhahan bal diinta ninkan uu gubayo iyo dadkan kacay ee ka diidan bal eega waxa mataqaanay ay qorayso isla markaasina intay dib u fiiriyaan ay u riyaaqaan oo ay arkaan marka waxyaabo aad loogu farxa ayaa mataqaanaa halka iyada ka imaanayo marka kitaabka quraanka eebe ayaa ilaalinayo mar walba ninkan iyo kuwa lamid oo asaga lamid oo cunsuriin ahna dhibaatada ay wadaan marna ha yaraatee kitaabka quraanka ah in aysan gacanta saari karin mataqaanaa aysan dhibaato u geysan karin ilaahay baana horay inoo sheegay in kitaabkiisa uu difaacanayo iyo waliba in mataqaanaa gaalada ay doonayaan inay quraanka inay damiyaan laakiin marna aysan suurtagal u noqon karin يريدون أن يطفئوا نور الله بأطفائهم والله متم نوره ولو كره الكافرون بالله يري waxay doonayaan inay gacmaha iyo sacabada inay ku joojiyaan kitaabka quraanka iyo faafidiisa laakiin suurtagal uma noqon karto ilaahay baa mataqaan arta iyada ka diiday gaaladii arbeed baa laga diiday marka kuwa kale oo garanaynin xageeb iyagana joogaan booliiskii halkan u taagan yahay dhalinyaradii muslimiinta ayaa halkan taagan dadku muslimiinta wadankan degan waxay u arkaan waxa uu ninkaas sameynaa inay tahay qalad waxay u arkaan inay tahay xadgudub xuquuqdooda lagu xadgudbaayo wadankan dastuurka wadanka waxa ku qoran in mataqaana ay dadku diimahooda xor u yihiin marka in qof shakhsi ah oo wadankan hataa aan u dhalan oo mar dhow dhalashada la siiyey inuu wadankan imaado oo dadkii uu isku diro oo bulshadii reer Sweden uu ka dhex sameeyo qalalaaso iyo qas iyo dhibaato dad badan waxay u arkaan inay tahay wax qalad ah ayay u arkaan oo dadkii wadankan u dhashay Swedishka arrinkaas aad bay uga dhiidhiyeen dad badan dawladda laakiin waxay ku doodaysaa waxa la yiraahdo xorriyatul qawl ayay ku doodaysaa inuu jiro la yiraahdo waxa la yiraahdo xorriyatul qawl oo ninkan u haysto ninkan waa nin wuxuu ahaa asalkiisa Rasmus